dayax filmis oo idinka mahad celinaya xilligan inaynu fiideo duubno oo aynu soo fadhiisano waxa keenaysa xaaladda taagan ayaa keenaysa inaynu ka hadalno barnaamijka okay waxa ka hadlaynaa sababta ka dambaysa iqrayaday fanaanada qadka dhexe uga ciyaarta fanka ka dhisan magaalada Nairobi inay isqaawiso oo mas'uul iyadoo meedhanaysa ay muuqaal keento koowaad waan iska gudagalaya barnaamijka oo waxba si aararmayna wayna soo koobaynaa marka koowaad xishoodka ayaa dhintay suuligana wax kala hala yaabina suuliga fiyuugi ayaa galay shaydaankiina uu ku sadeexaya fiyuugi ayaa waxa uu galay suuligi iyadoo meedhanaysa inay soo duubto de shaydaankiina u tahay maaragta haddaba maxay tahay darajada ay ku gaadhayso ama darajada ay ku helaysaa inay isqaawiso oo ay hawsha weyn ay sidaa u gasho oo ay cawradeeda u bandhigto shaydaankii iyo kan wax ka duubayaba ugu hirirta dhankaaga sida damal harweyno dadku haybsadan ban ugu hirirta dhankaaga ugu hirirta dhankaaga inanku hamu qabo hore kugu sheege mahoragi baatahay inanku hamu qabo hore kugu sheege mahoragi baatahay darajadii ku gaadhaysa waa milyanka inta loo wada ordiya waa inta loo wada ordiya waa inta waayo raggii iyo dumarkii ma wada daawanayaan haddii la shiraaqatay haddii intu wax weyn isku degdo la shiraaqo oo la asturo lama daawanayo laakiin anigu waxaan idin sheegayaa wallahi waxaad arki doontaan kuwa maryaha dhigta waayo markasta in baa la qaawinaya waa taa musqulihii kamaradii lala galay wax kalena way soo hilig leeyihiin way soo salag leeyihiin waxbaa soo sanqaraya anaa ogtaa howlan baan
inantaa dhan inay mudux iska dhigto weliba iyadoo cawradeeda waxaa kala weynaatay caanimadeeda. caanimadii ayay waxay ka doorbartay cawradeedii cawradii dhammeed ee inantu ay lahayd ee luul iyo dheemi lagu raadin jiray waxaa ka weynaatay caanimadii. fideoga faa'iidada horta fideogan faa'iidada ugu badan waxaa helay oo qaatay shaydaanka suuliga ku jira iyo kameramaanka ayaa helay, waayo iyagu wax kale oo qarsoon bay arkayaan. idinkuse dee timahan gaagaaban iskaga mashquula, timahan yare gaabanay firigtaa ka siinayso unbay deena ku mashquulsanahay iyo intan sare jirkeed iyo waxaan muuqda. laakiin shaydaanku wuxuu arkayaa in intan ka badan cawradeedii waa arkaya. kan kameramaankiina dee isagu intan uma kaga qabtay, laakiin isna waa u dhammaystiran tahay, waa la socdaa howlaha si life ah. sida damal harweyno dadku haybsadan ban kugu hirta dhankage kugu hirta dhankage inanku hamu qabo hora kugu sheege mahoragi baatahay inanku hamu qabo hora kugu sheege mahoragi baatahay darajada milyanku jarkaa duurtay shaydaanka godkiisa kula gashay oo alle wax ugu rog ayn maqli jira. inantaa waxaan leeyahay darajada milyankeed baad i goobaysaa jarkaa lalisay oo shaydaanka halkaa uu joogay ee suuliga aada isu qaabisay. ilaahay wax ugu rog, wax kale nidhaahna ma garanayo. xaaladdu way dhammaatay. waxa weeye fankii god buu ku dhacay. godkana wuxuu ku dhacay dee musqushaa lala tegay iyo inantaa isqaabisay. laakiin wax kasta waxay ku qurux badan yihiin milgaha, xurmada, sharafta. fankaaga daado iska walaaqanaya, diinna waad leedahay, gabadh soomaaliyeedna waa tahay, dhaqanna waad leedahay, dee intaa ku daba maxaa ku helaya? anaa ku og waad cod fiican tahay, waa lagu daawanaya haddaa xataa xijaab soo xidhato inaad saasa kaga khayr badan. ma garatay? wallaahi waxaan la yaabay goobta muuqaalka lagu duubay iyo muuqaalka loo duubay siday u qurux badan yihiin iyo meesha doogga iyo nimcada ay joogto quruxdeeda, iyo haddana kilibkaa yare fideogii dilay. fideogii dhammaa iyo quruxdii faraha badneed iyo inankaa duubiga ee joodiga bixiyay waxaa dilay musqushaa iyo shaydaanka iyo kamarada la isla duntay. dadkii maanta dunideena joogay iyo dalkeena dadkoo dhan qalbiga Yurub ka jiraan taadalado qaawano meedhanayo oo muduga oo de maxaad kala dooni wax faa'iido ku dhex jira ma jirto. barnaamijka intaas baan ku gabagabeynayaa, intaasaan ku xidhayaa. inantaana waxaan leeyahay ilaahay hortaa kusoo hadayo inaad 2 ragcadood oo sunna iska tuko, ilaahay u toobadkeen ka soo noqo halkan. hadhow oran doontaa fideogaas si ku talagal leh uguma talagalay si aan ku talagalahayn baa loo duubay, si aan ku talagalahayn baa u baxay, si aan ku talagalahayn baa looga hadlay. si albaabada ilaahay dee istaghfirtu way furan tahay, istaghfirla iska dheh, ilaahay u toobadkeen. inta kale ee ku dayanaysana waxaan leeyahay waniyahow kamaan tooba, laakiin waxaan idin ogahay wallaahi wax kala soo salagna.